sida aad la socotiin golo wasiir oo 25 ah oo ilaa 3 bilood soo socoto muxuu ahaay in la xisaabtankooda baarlamaanka la horkeeno jadwal ah ayaa xukuumadda meesheeda laga soo diyaariyay baarlamaankii oo aan ka warqabin ayaa waxaan ku warhelnay warqadaas sida daraadeed sida uu qabo xeer hoosaadkeena xildhibaanka qodobka 7 ee xeer hoosaadka farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay qofka xildhibaanka wuxuu ka shaqeynayaa wixii danta dalka ay ku jirto sida la socotiin kalfadhigan wuxuu ahaa in baarlamaanka muxuu ka shaqeeyo dastuurka 3 bilood oo soo socoto ayaa waxaa la rabaa in nala madadaaliyo oo aan kayn wasiir markii la wacayo saaxiibadayda sharafta leh wasiir markii la wacayo 3 nooc oo ku yimaada golaha baarlamaanka in guddiga uu ka tirsan yahay asaga ay soo gafaan oo golaha baarlamaanka ay ku kala baxayeen oo guddiga ay keenaan in muxuu ahaay baarlamaanka 10 xildhibaan oo kamid ah intay mooshin ka soo qortay wasiirkaasaan rabnaa ay dhahaan iyo inuu asaga sharci xukuumadda ka soo baxay oo asaga wasaaraddiisa qaabilsan halkan uu ka akhrinayo mikrofonkan wasiirka intaas oo ku imaan kara labadaba ma aha saddexdaba ma aha waxaa noola keenay warqad xukuumadda ka soo baxay haddaad aragteen oo wareeganayso oo muxuu ahaay guddiga joogtada iyo ay isku shubteen iyo xukuumadda shaki weyn ayay taasna gelisay anagoo ah xildhibaanadii Soomaaliyeed oo jecel inay danta dalka inay ka shaqeeyaan la rabo saaxiibadayda sharafta leh xildhibaanada qodobka 36 farqadiisa 2 ilaa 8 waxay tilmaamaysaa guddiga joogtada ee waajibaadka uu leeyahay taas ha noo